dadka la siiyo wax oo wax loo qabto waa arrin runtii min diin weeyaan quruxda islaamkeena iyo sharaftiisa ay runtii arrinta taasi ay muujinaysaa booyadii baan wali u fadhinaa in number fiicanna waynu gaarnay targetkii wali maynaan gaarin laakiin number fiican baynu gaarnay waxaan aaminsanay caawa insha Allah taala iyo habeen dambe inaynu targetkii in ka badan la gaari doono haddii ilaahay yiraah waayo niyaduna way wanaagsan tahay barnaamij dadku ay ku qanceen indhooda ku arkeen hawlihi aad soo martay meelaha tagtayba taasna aad bay yani noo caawinaysaa ilaahay baa subxaanahu wa tacaala mahadis kale waa runtii barnaamij aad iyo aad u farxad leh oo yani qofka bini'aadamka hadduu ka qayb galo walaalihii baahidooda inuu wax ka mida uu daboolo runtii waa arrin anaga sheekh waliba runtii sharaf iyo farxad noo ah ilaahay baana subxaanahu wa tacaala fadliga iyo nasiiyey iyo fursadda isagoon mahad celinaa wabixamdih wallahu subxaanahu wa tacaala aclam السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولا المقعة ماشي كسر ليس. والله الواحد كسر ربي أنا المقعة يجي الواحد عبد الهادي المقعة حال في قد السنة العكس اللي قبل ستة. مرة إن شاء الله تعالى إذا كوني بدنا ولا أكل شيء زي مرة أنت وبحن كنا بستو. عبد القادر هل كيف جوكت على لندن بقى؟ لندن ولا كرينا. وايه لندن كريدون أيو جوكا. وايه تي في حواس جاب عبد القادر وسلوك مغلا تي في جابية. وايه ولا أي ولا. ألو. كم سبعة وكم مغلنا. والله لو أنت بقول لك كنتم قريب الدور ثاني صدق إن شاء الله تعالى. وهياك. marka wala adeer oo khayra waxa doonaysaa in loo duceeyo ay istabaqad ugu darto ayuu ahaa ujeedadeedu xaajada magaceeda waxa la ilaahay maxamed yuunus ilaahay maxamed yuunus waa loo duceynayaa idinkuna aamin dhaha annaguna culimada duceynaysa insha Allah akoonkana ku soo shuba insha Allah taala isticmaala sheekh saciid ilhaan waa xaajada ugu horeysay odageedii uu ag fadhiyo alxamdulillah ilaahay mahdi oo hormood u noqday odayaasheenadii Soomaaliyeed iyo xaasaskii dhamaan u hormooday oo yiri xaajadeyda ayaa tabarucaysa u dhiiba telefoonka ما شاء الله خير الله سيو ولكن محمد عبد القادر كل بنا قولين كي كلا يجوا يكفي ديمان وانا رجع يكفي دور كا كل بدي على كان ماركتي ما شاء الله خير كا لبيو بجزاهم الله خيرا إلهي محمود يونس الله بركيه صدقة بقول لك تكاسر قيس كاسي صبحي أنا إلهي من مقبولها وقدقه محمود يونس أو جيريودين إلهي سبحانه وتعالى هو نحرسته كنض الله كورابيو قبرك الله والنور إلهي سبحانه وتعالى ذنوبتي حسنات الله وقبدله سيئات كي إلهي سبحانه وتعالى حسناتها وبدلوا إلهي سبحانه وتعالى جنة الفردوس على الله حقيه إلهي سبحانه وتعالى وحن كبري حوض النبي عليه الصلاة والسلام إنه شربت كعبه أما وعنتوق كعبه أنا دبدم بأمين محمود يونس بن الله سبحانه وتعالى وقبريه تاصل وحي كينيسا تربية ولا أكثر عروت الكورية مكا أودنتي وتايدين أنت سيلهان وصدق سنة صدقة إلهي سبحانه وتعالى درته بحنيسا تاصل وحويان صدق الحالة ذي يقف بلادك كعمل كيسوان وكوكلاجوين صدقة جارية أو ولد صالح أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ولدك الصالح هاي ودعيني صدقة بحني أي إلهام سوق ليس إلهي سبحانه وتعالى بركيه إلهاني محمد إلهي سبحانه وتعالى وبتكو كلاسيينا وبتصدق يقول صدقة مركز دنتان يعني عمر الدير كذب إلهي سبحانه وتعالى كواسو كلها سيو ويقول صدقة إلهي ترتب بحية يقول مقعودة كبحنية وأجر كلا يقول نيينية والله سبحانه وتعالى واي dadka gadaal laga soo gaaray waxaan la socodsiinaynaa barnaamijka aan bartamaha kaga jirno waa barnaamijka gargaaridda dadka dhibaataysan loogu dhaaminayay biyaha iyo cuntada loogu sameynayay dadkaas oo ku nool gudaha Soomaaliya hadda aragtaan dad badan oo dhibaataysan oo laakiin gaajo iyo oon lugaha la barreen ma rumaysanaysan dadkani ma gaajaysan laakiin dhibaato haysata waa haraadka iyo oonka iyo dhulkii oo abaartii ay ku daba dheeraatay geedihiina dhirta ay baaba'een dhulkiina bacaadkii aad iyo aad u kulul yahay dhulku wax ka soo baxa ma lahan xoolihiina meel walba daasayeen meedkoodii xoolo dhaqatada xoolaha ayaa ka baaba'ay dadka beeraleydina beero ma lahan waxa arkaysaan waxyaalaha dadka haysta oo dhan inaysan ahayn wax sahlan haddaa fiirsa beeraleyda beero ma haystaan oo beero ka baaba'een geedihii caleen ma lahan dhulkiina bacaad iyo dhagaxaan kulul ayaad ku soconaysaa dadku way kaba laayihiin way arradan yihiin way hoy laayihiin qaarkood waxay ka soo qaxeen oo ka soo hayaameen dagaalo sokeeye oo ka dhacay koonfur Soomaaliya haddaad u fiirsato waxyaalaha ka dhacaya meesha waa dadkii oo dib loo daaweynayo markaas la caawinayo waqtigu ha dheeraado filmaanta u dambeeya oo soo qabanay waxyaalaha ina tusayaan oo annaga waan soo indha joognay waa oon iyo haraad ayaa ugu daran dadkaas waxaa suuragal ah 3 bilood kadib ayaa Google sugaya hadduu roob ku yimaado awood
jirkooda uu isaga celiya ma haystaan laakiin caab waxaan u fadhinaa dadkaasi biidhaami xoog in loo sameeyo si looga gaarsiiyo xilliga u baahan yihiin in biyo wanaagsan la siiyo looguna geeyo meelaha hoodka ah oo ka fogfog magaalooyinka dadkaasi biyaha loo dhaaminayana waa biyo noocaas oo kale cidda ceel qodiysana ceel noocaas oo kale ay qodi doontaa insha allahu tacaala taas waxaa kaaga daran dadka dhibka soo gaaraya oo dhan waa waayeeladii carruurtii dhalinyaradii magaalooyinka fogfog ayay u shaqo tageen ama ay u carareen meelaha duurka hooyooyinkii ayaa looga tegay ilmihiina waa laga tegay baad iyo cunno midna ma haystaan waa dhibaato aada u weyn qofka arkana uu ka muraadilaacahiya odayaashii iyo aabayaashii iyo waayeeladiiba dhibaataysan yihiin walaalkana asalaamu calaykum waraxmat ullah asalaamu calaykum waraxmat ullah wacalaykum asalaam waraxmat ullah walaal maxaad oran lahayd caawa magaca meesha kasoo hadlaysa liverpool haya waayahay umu maxamed waa lagu duceynaya insha allahu tacaala dhibaatada waayahay ayaa soo diraya muraad baan leeyahay inan ba iga xanuun waayahay waa lagu duceynaya insha allah ducadana waad dhegeysanaysaa aaminna waa oran doontaa filinka halkiisa nooga sii wada si aan u aragna xaqiiqada meesha ka jirta dadki way soo jeedaan waana xilligan waa weekendi weeyaan britain axad wey iskuullada waa laga fadhiya shaqooyinkii dad badan ayaa iminka ishooda ku dhacaysa dhibaatadaas ayada dadka waxaan jeclaan lahayn dadkaasi gacantaan ku hayno waa ilmahayagii dhibaataysnaa oo ku dhibaataysnaa gudaha wadankii haddaba dadkaasi waxay naga mudan yihiin inaan caawina waa dadkii soo barakacay kana soo cararay dagaalada sokeeye iyo dhibaatooyinka koonfur ka socda waxay soo miceen badeen meelaha nabadda ka jirta laakiin abaar aada u daran iyo beel-aan xoog leh ayaa dadkaasi haysato walaalayaal waxaan doonaynaa dadkaasi inaan aada ugu gurmano iyaga oon lahayn mataqaanaa oon kala socneen oo waayeela iyo odayaal iyo hooyooyin intaba isugu jiraan dhalinyaradiina magaalooyinka fogfog ayay u kala yaaceen oo u xoogsa tageen dadka qaarkood xool laqata wey xoolihii ayaa ka baaba-ay qaarna beerley wey beerihii ayaa ka baaba-ay cid u qoda beerna ma lahan cid ceel u qodana ma lahan maxaa yeele roob ma jiro meel ceel laga qoday ma lahan dhulkii biyihiisa way fogaadeen biyihiina way gureen laakiin waxaa loo awoodi karayaa in loo dhaamiyo biidhaamin xoog le in loo sameeya inta xilliga roobka laga gaarayo ay ka dhiman tahay 3 bilood waxaa suuragal lacagta maanta aada bixisa wax weyn inay u qabanayso waa 250 poundka ingiriiska ah ama 400 oo dollar ayaa laga maanta inay badbaadiso ummad dhan oo waxa weeyaan nafta ay ku socdiso 3 bilood kadibna roobkii inuu yimaado ayaa rajo laga qabaa haddaba dadka dhammaan soo diray tabarucaadaha akoonka ay kusoo shubi karayaan ayagoo soo isticmaalaya magaca meesha qoran ADT ama telefoonada numberka meesha ku qoran xawaaladaha dhammaanna waa soo isticmaal karaysaan idinkoo usoo marinaya xawaaladaha kulligood xawaaladahana waxaan ka codsaynaa wakiiladooda in dadka soo diray tabarucaadka usoo fududeeyaan dadka ay ka qabtaan si loo gaarsiiyo dadka u dhibaataysan loona gaarsiiyo xilliga ay mudan yihiin telefoonka xafiiska ADT ee meesha ku qoran 55 ayaa u dambeysa meel walba ay kasoo diri kartaa qofkii website galahayana kaalmo dadku mayaad galaysaa sheekh weli booyadihii ayaan ku jirnaa weli meel fiican bay noo marayaan qofkii noogu dambeeyey gabadhii naga soo wacday ayay ahayd Norway naga soo wacday odageeda dhintay Allahu raxmada dad kaloo badanna way jiraan oo aan soo hadlaynin oo sadaqada qaranayo oo rajeynayna in ay si kale kusoo diri doonaan insha Allah sheekh weli haya balcaaw xaaladu arkaysaa bismillah alxamdulillah wasalaatu wasalaamu calaa nabiyina maxamed wa sallam gabdhahaas iyo rag iyo dadkaa ka jawaabay baaqi ama meesha ay waxay ka arkayaan ilaahay fadligiisa subxaanahu watacaala dadka waxaan rajeynaynaa dembi dhaaf iyo cafis inta kale kalena waxaan rajeynaynaa ilaahay subxaanahu watacaala inuu fududeeyo ilaahay subxaanahu watacaala waxaan rajeynaynaa inuu inagana naga aqbalo baryadeenaas iyo mataqaana baaqeena naga aqbalo gabadhii u dambeysay walaasheena umasaacid ahayd odaygeediina mataqaana ka dhintay wiil yar haysatay ilaahay subxaanahu watacaala odaygaas ka dhintay ugu bedelo ku ka khayr badan sida ducadii nabiga ahayd oo kale sala allahu calayhi wasalam wiilkaana ilaahay subxaana watacaala agoonkaana ha ka yeela ilmo barakaysan sidii nebi maxamed sal slam agoonba isbaahaa siduu ilahay u barakeeyo o kale hadda isdiil waxaan doonaynaa dadka walaalaheena haddana maqlaya in ay nagala qayb qaataan qofaa khadku sheekh waliyo asalaamu calaykum waraxmatullah calaykum asalaam waraxma walaal magaca meesha ka soo hadlaysa waa booyadii insha allah walaal waxaan joogaa suuda nasraa la yidhahaa
qolada tabarucaadka waa soo maray aad baa uga xumay qof kasta laakiin taraankiisa uu bixiyaa de wuxuu awoodo waa sidaas wey haa marka waxaan rabay in laysoo duceeyo hooyada iyo aniga waan xanuunsanaa muraad yar baan leeyahay sheekh Siciid khaas ahaan haysoo duceeyo insha Allah magacaaga maxaa tiri Nasra waayahay nasra lagu duceynayaa adiguna aamin da insha Allah culimada ku duceynaysaa sheekh walahaye nasra waa u duceynaa insha Allah aan dhameeyna tii kala kadibna sheekh Siciid nasra marka waxa way bismillah alxamdulillah nabi sallallahu alayhi wasallam Aisha wuxuu ku booriyay Aisha naarta iskaga xajaabay timir jihad baan noqotay maxaa yeelay qof gaajaysan bay gaajada ka awdisa waa timir hadda waxa gaajada awdisa sidoo kale nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri qof kasta ilaahay baa la hadli doona maanta qiyaamada isagoo turjumaan la'aan kula hadli doona markaasuu arkayaa wuxuu hormarsaday midigtu eegayaa markaasuu deedna arkayaa wuxuu hormarsaday bidixdu eegayaa wuxuu arkayaa wuxuu hormarsaday xagga hore eegayaa deedna wuxuu arkayaa naar mooyaan wax kale ma arkayo fattaqullah warkabaqa ilaahi dadow walow mataqana bashaq timra timir jeexid baa la ka ilaahay waa baqa waa timir jeexid maxaad moodaa walaalayaal dadka maanta booyada la baxay booyad dhan u biya qofka bixinaya maxaad maranaysaa intee darajada qofkaas gaaraya intee qof buu waraabin karaa 45 foosto ama 40 foosto wax leeg waxa weeye waxaan maranayaa khalqi dhan baa cabaya marka qofka taago timir jeexid oo qofka naar looga xijaabayo oo nabiga sallallahu alayhi wasallam xadiis kale ku leeyahay assalamu alaykum wa rahmatullah السلام عليكم ورحمة الله مقعد ماشي كساس ولال ها وكبقى أي شيخ سعيد قودي قدام بيسي الدعاء دلبتي هي بسم الله الرحمن الرحيم يدي وحنا سرعان ولا شيء كوريسي أرتوح كوريسي أم محمد وليفربولا وقل دور ربي بحصي إن بك حنوصنا يسي الله سبحانه وتعالى تعب نضسيه ومحمد إله سبحانه وتعالى جزاء كذا جزاء موفورا الله وقدقه صدق إذا من مقبول الله وقدقه شرطنا الله وذقيدي ينتهي ينتهي عشايبه وعيقول حكيته ولا شيء إن نصر سويدن بين نصر كسو هذا الشيء نصر خير الله سيه صدق إذا من مقبول الله قدقه وأنت تلفون كصدر تقول إذا هذا الشيء واحد بحسين إله إذا إله بيسوقه إله سبحانه وتعالى وحن كبر يد الله باللابن أو تبلابن إله سبحانه وتعالى وكسيه هذه إذا أبو حنوصل إنسان إله سبحانه وتعالى حنوك عفوا الله يذكر بدله حنوك إلى كركينا كقاضو اللهم رب الناس ذي بالباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم اجعل النصرة وأمها من كلها من فرجها ومن كل ضيق مخرجها ومن كل بلاء عافية طهور لا بأس لنا إن شاء الله نصر مراد بين ذي الله سبحانه وتعالى مراد كيداس أدو شريعة الإسلام كوافق سيه وأنا وافق سيه إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله هو يا كيف سؤال ليس مقع عقدهم حسن السلام ورحمة الله حاجي هيا السلام عليكم ورحمة الله مقعك انت كسو هذا هلو الحاج وحبته والله يا فندم هيا ولا تي في واحد رقابي خير الله كسي هيا محاضرة له العوا والله أكونك من وحن بريتان إن شاء الله مشان يا نص عمر يا بير مقرأ وايا مقعك مقعك وحاج خبر بلا أنا خضر والله قلت خير الله كسي هيا مركان خضر الشيء بلا أنا وايا هي خضر شو لها قدومي خير الله كسي جزاك الله خيرا وحن إن شاء الله بريتان وحاج يسولي هيا هيا معكم درسة كون أفريقيا كون كلا وحسنا كلا وكذا مقرأ halkani waa ADT waa ADT oo soo gudbisay xaqaaqiqda ka jirta dhulkii aynu ka imaanay Soomaaliland iyo Puntland iyo Koonfur Soomaaliya abaaraha dhibaatada ka jirto ninkan la hadlayo oo ah mas'uulkii ugu sareeyay hay'adda caawa abiilka sameynaysa ayaa la soo kulantay dadka dhibaataysan ee ku nool gudaha Soomaaliland iyo Puntland intaba idin soo gudbisay isagoo ugu tagay away qoladii stuudiyaha filanka ugu tagay meelaha buushashka iyo dhulka haraadka iyo oonka ku hayo hay'adda caawa sameynaysa magaceeda waxa la yiraahdaa ADT magacaas ayay wadataa telefoonkeeda waxa u dambeeya shashan ayaa u dambeeya xaqiiqada aad arkaysaan oo iminka aad daawanaysaan waxaan ka soo gudbinay muddo laga jooga bil wax ka yar baadiyaha ama duurka fog ee abaaraha ka jiraan ee Soomaaliland iyo Puntland iyo meelo ka mid Koonfur Soomaaliya oo socdaal aynu ku tagnay soo gudbinay xaqiiqada dhabta ee dadka ku nool yihiin inagoo la fariisanay waayeeladii hooyooyinkoona oo kala ahaa oo haraadka iyo onka ku hayay oo ugu tagnay buushashkii iyo aqaladii ka sameysnaa